siyaasi Cabdullaahi Dahab oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo qaybo kamid ah warfidiyeenada kula hadlayay gudaha caasimadda Soomaaliland Hargeysa ayaa si rasmi ah u soo dhaweeyay in la soo afjaro khilaafkii u dhaxeeyay jabhadii Korneel Carre iyo xukuumadda Soomaaliland iyadoo guutadii ugu horeysay maalinimadii shalay toole gobolka Sanaag ay kula wareegtay xukuumadda Soomaaliland. waxa weeye inaan bogaadiyo hawshii wanaagsaneed ee taariikhiga ahayd gobol Sanaag shalay ka dhacday. hawshaasi waa ogeydeen waxay ahayd nabar ku furan qarankan si xunna marka hore noogu maartay si hore dhib yar noogu bilowday markii dambena maareyntiisii in badan lagu wareeray. ilaahay wuxuu ku guuleeyay ragga dhexda ka guntaday maamul iyo odayaal iyo waayeel iyo salaadiin balaha ee ka hadhi waayay iyagu dhibaatada iyo aflagaadada iyo mashaakilka iyo hanjabaadu ay ka soo gaadhay laakiin joojin waaya halgankoodii waxay keentay in ilaahay shalay mirahoodii oo ummadda tuso. waan bogaadinayaa in awalan qabla kulli shay ilaah baa mahadle alxamdulillahi rabbil caalamiin. hawshaa iyada ah ee khatarta lahayd ee ciidanka hor fadhiyay ahayd haddii ilaahay aan waxba inagu yeelin labadaas sano dhow wax ilaah loogu mahadnaqo way 20 mar haddaynu bilownay in hawsha weyn fulino sanadkan bishaaro weyn baa ii muuqata. waxa ii muuqda inaynu tallaabo hor leh oo wanaagsan u helnay dalka gaar ahaan gobol Sanaag. walaalayaal gobol Sanaag waa gobol ballaaran waa gobol 3 meelood oo meel eg Soomaaliland kale sidaa aawadeed way dhacdooyin badan baa dhaca oo bari ka dhaca oo inta dhexe ka dhaca oo waqooyigeeda ka dhaca oo koonfurteeda ka dhaca sidaasaa maqalka Sanaag iyo waxa ka dhacaya ay u badan yihiin. waxa kaloo jirta oo soo korodhay in dadku sidii hore aanu ahayn dadkii xadaaradda iyo waxbarashada iyo deganaanta lagu yaqiinay in bariyaha dambe ay wax ku jireen. ilaahay waxaanu ka baryaynaa in sanadka uu ka saaro oo ay u soo noqdaan noloshoodii iyo dabeecaddoodii rasmiga ahayd ee wanaagsaneyd inay u soo noqdaan hadduu ilaahay yiraahdo. waan bogaadinayaa waayeel ka shaqeeyay waan bogaadinayaa qof walba oo arintaa gacan ka geystay ajar aakhirana uu ka helayaa abaal adduunyana uu ka helayaa. waxa weeye arrin weyn oo khatar u ahaa dalka khatar ku ah qarannimadu khatar ku ahaa jiritaanku khatar ku ahaa dadka nabadoodu khatar ku ahaa dhaqaalahoodu khatar ku ahaa horumarintooda iyo hay'adahooda iyo waxbarashadooda ayuu khatar ku ahaa. ilaah bay naga soo afjaray hadday naga dhamaatay oo si nabada oo sharaf leh oo raali loo kale yahay ay ku dhamaatay alxamdulillaah rabbil caalamiin. ragii ka soo shaqeeyay waa mahadsan. qodobka labaad waxa weeye baaq aan u dirayo dhammaan reer Sanaag walaalayaal bari Sanaag bari dayac badan baa ka jira waynu ognahay. Sanaag tan dhexe ceerigaabay inta ku xeeranna waynu ognahay iyaduna dabadhac far badan baa ka jira. waxa ka sii liita area ceelaf weyn iyo garadaga intaana waa ogtihiin oo dagaaladan iyo dhibaatooyinkan ayaa halakeeyay oo dadkii way ka hadheen waxbarashadoodiina way ka hadhay. marka waxay u baahan yihiin guud ahaan talay u baahan yihiin. gobolku wuxuu u baahan yahay guddi la yiraahdo guddiga horumarinta gobolka. guddiga barigan anigu gudoomiyaha ka ahaa waa taanu ku guulaysan inaanu jaamacadda Sanaag furno. dadka individual waxba looma qaban karo dad wada socdaa wax qaban kara. ummadda yuhunteeda in la soo celiyo min bari ilaa galbeed ilaa koonfur Sanaag rag la yaqaan oo koora oo wax qaban kara oo aqoon leh ee diyaariyaan barbooskii ummadda lagu horumarinta lagu gaarsiin lahaa. hadday meyd tahay hadday laas qori tahay hadday garadag tahay hadday ceelaf weyn tahay hadday intaa dhexe tahay ciddii waxaa ka shaqayn lahayd ur faradhubnaan lahayd ee garan lahayd baahida rasmiga ee meesha jirta ayaa maanta loo baahan yahay. sanadkaa cusub waxaan ku baaqayaa dadku inay horumar ka fikiraan qoriga iyo ciilqabka iyo utunta iyo mataqaanaa kala aarsiga iyo waxan socdaa la joojiyo. ma maqasheen la kala dheeray oronda maaha. waxa weeye dunidu waxay ku kala horumartay waxbarasho siyaasad waxgarasho ayay dunidu ku kala horumartay. sidan iska dabawareega ah nin maartay uu cidbinayo waxba laguma gaaro waxna laguma helo. marka guddiga horumarinta waan ku baaqayaa in la nooleeyo oo hadda la abuuro oo maamulka jiraana uu taa ka shaqeeyo. laano bariga aanu guddiga sameynay maamulkii markaa joogay baa nala sameeyay oo nagala shaqeeyay oo hawsha nala waday. maamulku waa inuu gartaa markaa in guddigaasi laga maarmaan u yahay. waxaanu mashaariic oo taagan oo hay'ad ka taagan
ama dawlad ku taagan ama meel kale ku taagan sida kaliya lagu soo saari karo waxa weeye community oo dad noocaas laga xulo dadkaasina ay baahidii dadka doonaan marka guddiga waan ku baaqayaa oo waxa ugu horeeyo garada waxay u baahan tahay jaamacadeedii in la hirgeliyo oo si fiican u shaqeyso ceelfeen waxay u baahan tahay in tafsiir course in ardayda loo sameeyo waxbarasho degdeg oo lagu soo gaarsiinayo dalkii kale lagu soo gaarsiinayo waayo way ka hadheen ardaydii waxa loo baahan yahay ceergaabo sanaag ceergaabo gudaheedana waxa loo baahan yahay jaamacaddii sanaag university iyo jaamacadii kale hadda la sameeyey in la tayageliyo maydh waxaa loo baahan yahay dekedeedii iyo hawshii loo waday iyo wadadiiba in la socodsiiyo laas qoray waa meesha ugu muhiimsan waxaa loo baahan yahay laas qoray sanaag bari marka la leeyahay wax laga qabta la leeyahay ma aha in loo hanjabo ma aha in ciidan la geeyo ma aha in si kale la yeelo waa in horumarin lagula tartamaa dadka oo horumarin la geeyaa laas qoray waxaa yaala warshadii ugu weyneed isku wada dar dalka Soomaali magaca la yiraahdo oo dhan nasiibka ilaahay halkaas ka dhigay waxa weeye muwaadiniin reer laas qoraya oo reer sanaag bari u badan ayaa iskala sheeriska shirkadda warshada fadhida 400 oo qof ayay xoolo kaga jiraan cidda la rabo inay u hadasho u dagaalanto ay wax u qabato waxa weeye waa xukuumadooda weey xukuumaddu marka waa inay siyaasadda ku darsataa warshada laas qoray inay kacdo shareholderska loo yeero dadka mas'uulka loo yeero mataqaana rugta ganacsigu waa shaqadeedii inay abaabusho dib u abaabusho bal wixii ay shirkadda bahashaas fashilantay ay ku bixi lahayd waxyaalaha ugu waaweyn tabayaan waxaa ka mid ah in suuqi loo xiri waayo suuqi kalluunka in warshada laas qoray ay la tartantay warshad la yiraahdo Taiwan ku taala oo baac mushtarka keeno ama meel kale ka keeno in ay la tartantay warshadeennii laas qoray ka soo saaraysa kalluunka waxaanu u baahanahay mashaariicda noocaasa ee waxgalka ah ee dadka wax ku celinaya ee dadku ay ku jeclaanayaan dalkooda iyo dadkooda iyo hunta ay ku soo noqonayso inaynu kobcino kicino horumarka haddaynu sameeyno oo aynu wadadii dhaqaajino waan maqlay maalin dhaweyd aad iyo aad aan u hambalyeynaya runtii in la keenay qalab fara badan oo wadadan sanaag wax ka qabanaya taana waxaan leenahay ku bogaadinayna hore ugu socda wadadan sanaag shaqo xoog leh u baahan tahay shaqada u baahan tahay way ka badan tahay inta hadda la sheegay laakiin sida ay imika u socotay si ka badan ayaanu doonaynaa insha Allah inay u socoto dadku guud ahaan waxaan leeyahay horumar ha u soo jeesteen jabhadeyntu wax uma tarto rabshadu wax uma tarto buuq wax uma taro qabiil qabsada wax uma taro in ay dadkooda dhinac ka raacaan oo dalka ay horumarintii iyo wanaagii iyo waxbarashadii lagu soo dabaalo ayaan ku baaqayaa aad iyo aadna waad u mahadsantiin Cabdikariin Ciise Cabdullaahi Cabdikariin Staji warbaahinta Fios News gudaha caasimadda Soomaaliland Hargeysa